iyadoo bilihii ugu horeysay ee sanadkan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ay qayladhaan ba'an ka soo yeedhisay qaar ka mid ah naafada dabiiciga ah ee Gabiley qayladhaantaasi oo salka ku haysay dulmi ay ka tirsanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo sheegay in aanay ka dhex muuqan xafiisyada dawladda kuwa ganacsatada shirkadaha oo ay sheegeen in intooda badan ayna waxba ugu talagelin shaqagelinta ay sameeyaan sanad walba sidoo kalena guryaha fooqaqa ee la dhisayo aan loogu darin meelo ay ka koraan iyagoo ka shaqayn kara shaqo kasta oo maskaxda iyo qalinka iyo gacmaha lagaga shaqeeyo ayaa waxay samaysteen urur ay ku midoobeen naafada Gabiley una doorteen maamul iyagoo xafiiskana ay ka caawiyeen urur dhalinyaro ah oo ka dhisan Gabiley waxaana xariga uga jaray maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha naafada Gabiley waanu faridkaasi asal magaalada ku fiirsan ee ka soo bixin si nidaamsan inaanu ugu ogaano oo anagu had iyo jeer ogaano oo noognahay oo magaranaysa cidda kale ee madaxda dowladana aanu ogeysiino ayaanu xafiisyada furnay si awgeed aanu heerka beynayn oo xagga magaranaysa neerfaha awgi aan beynayn taasoo ay aanu furnay baahi ah in muxuu ahay halkan inta iman karaysa magaalada soo gaari karaysa waa inta soconaysay inta jiifta guryaha ee u baahan muxuu ahay in la gacan qabto horta inaan tirada ogaano dowladda u sheegno sidii wax noola qaban lahaayeen waxaan ugu daran insha Allah wixii ku socon lahaayeen ay ku soo dhaxgeli lahaayeen muxuu ahay magaalada ku iman lahaayeen xataa qaar wax jii wax baran karaya oo maskax fiican ama dhala ama dhagala ama lagu insha Allah marka dadka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka waxay soo caawiyaan oo ay ku daraan mustaqbal ifaya dadka ninka xuriyaankii ma hadda naafo gurigu ay joogo waa qof aad wax barto wadkiisa wax tari karaya insha Allah oo dadka soo dhaxgalay waxay baahay wax ku socdaan oo baaskiilada yara ku maxay battery ku shaqeeyo kale way baahay insha Allah iyo in waxa laga caawiyo waxaad hesheen weelkii wax lagu bayay konta adu baahataan annagu garabkiinaan taagannahay xigeenka iyo shacab weynaha kale ee degmada Gabiley waxaan halkan uga mahad celinaynaa cid kastoo nagala qayb qaadatay barnaamijka kobciyaha bulshada leeyahay oo ahaa barnaamijkii ku dhashay inuu dhiirigelin u sameeyo walaalahooda naafada una qalabeeyo xafiiska intiisii hore si hadallo goobaabo ah ka soo jeediyay maayarka magaalada Gabiley oo insha Allah ta'ala aanu rajayn doono inuu wax badan maanu rajayno inuu wax badan ka qaban doono arrimaha dadka naafada ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa haddaan nahay maamulka ciddii khaasatan dhalinyarta gacanta ku hayso barnaamijka la yiraahdo kobciyaha bulshada oo ka caawisay naafada inay xafiiskan runtii furtaan iyo naafaduba inay maanta intay isu timaado ay gartaan inay iyagu maamul samaystaan dadka aaminsan inay aragti qabyaaladeed ummaddu wax ku noqon karto waa been iyo lugooyo ummaddu qabyaalad waxba kuma noqon karto taariikhdii hore iyo taariikhda imika meel laga soo heli maayo dad ama bulsho qabyaalad wax ku noqda bulshadu waxay wax ku noqotaa waa mabda iyo aragti dadku waxa loo baahan yahay inay isku habeeyaan sida iskugu xirfada yihiin iyo sida isugu duruufaha yihiin sida naafado kale si kastaba ha ahaatee waxay u baahan yihiin naafada qaybahooda kala duwan ee dalka Soomaaliland sharci damaanad qaada isla markaana ilaaliya xuquuqdooda waa Absalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.